إلهي سبحانه وتعالى waxa uu hadiyadaha inoogu soo diraa hab aynan fahmaynin maadaama uu hab fikirkeenu kooban yahay aragtideennuna ay xadidan tahay. Badhaadhuhu waxa uu inoogu yimaadaa hab balanbal u muuqda, deeqduna hab diidmo u muuqata, niyad dhiskuna hab niyad jabin u muuqda. Se marka hab fahanka uu kuu tooso ayaad si dhab ah u fahmaysaa inuu Ilaahay naftaada kaaga naxariis badanaa, Rabbiga samuhu aanu wax aan sama ahayn kuu hagaynin. Cabdillaahi ibnu Cabbaas ayaa ku yidhi ardaygiisa Cataa ibnu Abi Rabaax, ma ku tusaa gabar ehlu janno ah? Cataa haa ayuu ku yidhi. Cabdillaahi ayaa ku yidhi, gabadhaasi Nebiga sallallahu calayhi wasallam ayay u timi oo ay ku tiri, rasuulkii Allow waan suuxaa oo dharka ayaa iga faydmaa ee Ilaahay ii bari. Markaasuu Nebiga sallallahu calayhi wasallam ku yidhi, haddii aad doonto u samir oo janno ku hel, haddii aad doontana Ilaahay waan kaaga baryayaa inuu kaa shaafiyo. Markaasay ku tidhi, iska daa waan u samrayaaye ee in aanay maryuhu iga faydmin uun Ilaahay iiga bari. Markaasuu Nebiga sallallahu calayhi wasallam ugu duceeyey. Xanuunku waa mid ka mid ah hadiyadaha Ilaahay subxaanahu wa tacaala saaxiib. Wuu kugu imtixaanayaa si uu kugu dhaafo dambiyo aanay adeecistaadu gaaraynin heer uu kaaga dhaafo. Wuu kugu imtixaanayaa si uu qalbigaaga u jilciyo oo qalbiga waxa ugu waxtar badan oo uu ku waayo arkaa marka uu xaalad taagdara ah dareemo ee adduunkuna xaqiiqadiisa uu tuso. Qofka inta uu nool yahay waxa uu soo maraa imtixaano kala duwan oo Alla weyne uu ku xukumo xikmad ahaan, waana in uu ku sabraa qofka muslimka ah oo uu u dulqaato dhib kasta. Inuu Alla ka malayo malo wanaagsan waana cibaadada kuwa runsheega badan. Qof kasta oo muslim ah waxaa waajib ku ah inuu wanaajiyo malaha Alla uu ka malaynayo, uuna yaqiinsado wax walba oo ku dhacay inay ahaayeen wax aanay gafaynin. Abi Hurayra, Allaha ka raali noqdee, Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ka soo wariyey inuu yidhi, Ilaahay sareeyey wuxuu yidhi, aniga waxaan ahay addoonkayga malihiisa agtiisa ayaan ahay. Yacni qofka Alla ka malaya khayr wuu helayaa. In malo wanaagsan Alla laga malayaa waxay kaa celinaysaa musiibooyinka, waxayna kuu soo jiidaysaa xasilooni iyo deganaan nafsadeed. Ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa ah midka wax shaafiya oo caafiya. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu jecel yahay addoonka ducada ku xeel dheeraada. Ibnul Qayyim Allah u naxariista wuxuu yidhi, ducadu waxay ka mid tahay daawooyinka ugu faa'iidada badan, waana cadowga balaayada. Way kaa celinaysaa, wayna ku daaweynaysaa, wayna u diidaysaa inay soo degto. In yar u samir, waayo dhibka kadib waxaa jira fudayd. Arrin kastaana waxay leedahay waqti ay ku kooban tahay. Sabarkuna waa furaha farajka. Ogsoonow, dulqaadka wuxuu dumiyaa buuraha. Haddii samirku uu qaraar yahay, natiijadiisu waa macaan. Dulqaadka xilliyada masiibada waa mid ka mid ah heerarka ugu weyn ee iimaanka. Waa walaalkiina Cabdixakiin Axmed oo idinla doonaya guusha labada daarood. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.